Okay? Go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Anigoo gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee gobolka Saaxil waxaan saaka shirkan jaraa'id u qabtay amni darrada ka dhacday gobolka waxaan ka hadlayaa waxa ka dhacay saaka qas iyo qaylo iyo dagaal iyo rasaas magaalada Berbera waxaan leenahay aanu soo jeedinaynaa dawladda yada maanta dalka u talisa amnigeedana gacanta ku haysa ciidankana gacanta ku haysa inay amni dirro yadu ka bilowdo oo la yiraaho dawladdi baa waxa sababtay ma wanaagsana waxaan leenahay dawladdu amniga ha ka shaqeysto wixii kala iyaga ayay u taalasay u dhamaysanayeen arrin anaga naqusaysa maaha laakiin waxaan diidaynaa gobolada dalka ee faraha badan leh mid ay amni darro ka jirtaa ma jirto saaka waxaan kaloon soo jeedinaynaa dadka Saaxil degan in ay iyagu ilaashadaan nabadgelyadooda because khasaaruhu iyagu ku imanaya oo aanay dhibaatada iyo rabshadaha aanay hor ordin waxa weeyaan maanta xaalad baa lagu jiraa wadanka waa la wada og yahay wax inoo kala qarsooni ma jirto waa reer Saaxil oo noqonina halkii lagu isticmaalayay madaxda gobolka lagu isticmaalayay in ay Soomaaliland oo dhan sababto iyadoo wax hore looga soo taagnaa wadanka in Soomaaliland oo dhan sababto inay buuq iyo qaylo iyo dagaal ay u horseedaan waxaan leenahay waxa fiican xildhibaanada maanta la sheegay ee la xiray xildhibaanku wuxuu leeyahay karaamo waxa uu xildhibaanka golaha deegaanku la qiimeeyahay cod buu ku yimi madaxweynuhu cod buu ku yimi baarlamaanku cod buu ku yimi golaha guurtida wasiirada kuwa xarigooda waan cambaaraynaa waxaan leenahay hadii ay xiran yihiin saacadahan aan hadlayno xurriyadooda ha loo soo celiyo berberina yaydaan noqonin ma marinkii qasaan noqoteen maxaa dagaalka iyo buuqa meel walba waa ka socdaa arrinkani wada hadal waa ka socdaa waxaanu garan weynay sababta berbera ay gacanka hadalku uga bilaabmay taa waxaan leenahay waa wax gobolka u gaara cidii hogaaminaysaana waa ku eedaysanta iyada ku cambaaraysan dadkana waxaan leenahay amnigiina iyo nabadgelyadiina ilaashada yaan la iska kiin hor keenin idinka yaan la idin kala qaybinin dalku waxa uu baahan yahay haday wax isbedelayaan iyo hadii kalaba in amni iyo wada hadal lagu dhameeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo saaran guudinaya in gudoomiyaha xisbiga wixii waxa tahay gobolka Saaxil say wararku sheegayaan mudooyinkii maalmihii dambe waxa ku sugan magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland waxay wararku sheegayaan inaad adiga laftigaaga farxad tahay lacag juleed aad timid xagga maamulka gobolka iyo taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Berbera xagga ma joogtaa adiga laftigaaga weynay farxad sheeganaas waxba kama jiraan anigu arrimahayga ma jooga Berbera Hargeysa dil la istoonayo RRU baa loo sabaysto in walba xafadiisa loogu tagaa wadogtiina loogu dhaca aniga cid intayda degan reerkayga degan waa xilligii kulaylaha imtixaanaha socda caruur bay iskuulaygu jirta danahaygan maamulanaya cidna isma soo eriyay Berbera cidna kuma kala adka xusbi baanan anu gudoomiye wahay waana xusbiga gobolka haysta oo maanta gobolka ugu adag ta maanta ka dhacaysa ayaan anagu maanta ilaalinayna amnigooda iyo nabadgelyadooda hadii u cidleeriyanayna maanta Berbera sidan ma ahaateen afar qof isku meeyriyeteen wax kala ka dhici lahaa waa been weeyaan taas iyo propaganda